cumar bin alkhadaab bin nusayl alcadawi alqurayshi oo ay kunyadiisu tahay abuu xafsa naanaystiisuna tahay alfaaruuq waxa uu ahaa khulafaa uraashidiin midkoodii labaad wuxuuna ka mid ahaa 10 qofood ee jannada loogu bishaareeyey cumar bin khadaab waxa uu dhashay 13 sano kadib dhalashadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam rasuul laga dhigay cumar bin khadaab waxa uu ahaa dadka islaamka mucaarada kuwa ugu daran muslimiinta markii ay u hijroodeen dhulalka xabashada ayuu islaamay cumar bin alkhadaab ilaahay ayaana islaamka ku ciseeyey abubakar ayaa kala ballamay cumar bin alkhadaab inuu noqdo khaliifkii muslimiinta cumar bin alkhadaab wuxuu noqday khaliifkii muslimiinta kadib dhimashadii abubakar oo ku beegneed 13 hijriyada cumar bin khadaab xilligiisii dhulalkii la furtay waxaa ka mid ahaa dhulalkii shaam iyo magaalada dimashq oo hadda ah caasimada wadanka suuriya magaalada dimashq waxaa furteen abu cubayda caamir bin cabdillaahi bin aljaraax iyo khaalid bin alwaliid bin almugiira waxaana laga furtay dowladii la dhihi jiray ruum waxaa kaloo ka mid ahaa dhulalkii la furtay baytulmaqdes oo ah dhulalka muslimiinta oo hadda yahuudda xoogga ku haysato waxaa kaloo ka mid ahaa dhulalkii la furtay xilligii cumar bin alkhadaab wadanka masar waxaana furtay camar bin alcaas dagaaladii ugu caansanaa ee dhacay xilligii cumar bin alkhadaab waxaa ka mid ahaa waqcatuljisri aluulaa uu hogaaminayey abu cubayda bin mascuud athaqafi wuxuuna u dhexeeyey dagaalkan muslimiinta iyo dowladii la dhihi jiray furus dagaalkan muslimiinta ayaa ku guuldaraysteen balse muslimiinta waxaa uga shahiiday 4,000 oo qofood oo uu ka mid ahaa hogaamiyihii muslimiinta abu cubayda bin mascuud athaqafi dowladii furusna waxaa looga dilay 6,000 oo qofood waxaa kaloo ka mid ahaa dagaaladii ugu caansanaa waqcatuljisri athaani waxaana hogaaminayay muslimiinta musanna bin xaarisata ashaybaani wuxuuna u dhexeeyey dagaalkan muslimiinta iyo furus waxaana guulaysteen muslimiinta waxaa kaloo ka mid ahaa dagaaladii ugu caansanaa ee dhacay xilligii cumar bin alkhadaab fatxulqaadisiya waxaana hogaaminayay muslimiinta dagaalkan sacad bin abi waqaas dagaalkan wuxuu u dhexeeyey muslimiinta iyo furus wuxuuna socday 3 maalmood waxaana guulaysteen muslimiinta cumar bin alkhadaab wuxuu ahaa qof ku tilmaaman go'aan adeeg kana dhowrsan hantida shacabka muslimiinta ah qof shaqaalihiisa ka mid ahna uma uusan ogolaanayn in uu gooni la noqdo ra'yigiisa cumar bin alkhadaab waa khaliifkii ugu horeeyey oo loogu yeero amiirulmu'miniin waana qofkii ugu horeeyey oo amray in la ballaariyo masjidul xaraamka ku yaala maka iyo masjidunnabawi ee ku yaala madiina cumar bin alkhadaab waa qofkii ugu horeeyey oo amray in la sameeyo taariikhda hijriga oo ka bilaabanayso sanadka uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo u hijrooday magaalada madiina cumar bin alkhadaab wuxuu kaloo ahaa qofkii ugu horeeyey oo amray in la sameeyo diiwaan loogu talagalay in lagu qoro dakhliga xukuumadda soo gala iyo midka ka baxa iyo qaybinta mushaaraadka lana siiyo dadka mutaystay wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyey oo dhisa guryo loogu talagalay martida wuxuuna ka buuxiyey cunto fara badan si loogu caawiyo dadka musaafiriinta ah oo sahaydu ay ka go'day cumar bin alkhadaab wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey oo wareega habeenkii si uu la socdo xaaladaha muslimiinta ay ku sugan yihiin wuxuuna magacaabay garsoorayaashii wuxuuna sameeyey guri loogu talagalay si loogu xafido hantida muslimiinta oo lagu magacaabo baytulmaal waxayna hantida uga kala imaan jirtay zakada iyo jizyada laga qaado gaalada ku dhex nool dhulalka muslimiinta iyo qaniimada ay muslimiinta ka helaan dagaalada 20% ama 5 meelood meel iyo dhaxalka qofka aan lahayn qof dhaxla cumar bin alkhadaab wuxuu kaloo ahaa qofkii ugu horeeyey oo sameeya boosto si fariimaha loogu qaado dhulalka muslimiinta oo idil cumar bin alkhadaab asagoo muslimiinta tujinaya salaada subax ayaa waxaa soo galay abu lu'lu'at almajuusi alfarisi cumar bin alkhadaab ayuu 6 jeer ku duray mindi mid kamidana ay ahayd xudunta hoosteeda
kadib abulu'lu'a waxau bireeyey nafsadiisa markii uu duray kadib 13 ka mida muslimiinta oo 7 ka mida ay geeriyoodeen. cumar bin alkhadaab wuxuu ku qeeliyey waxaa i duray eygii, kadibna waa uu dhacay. muslimiintii waxaa imaam salaada ugu noqday cabdiraxmaan bin cawf. kadib cumar bin alkhadaab waxaa loogu yeedhay dhakhtar. markii cumar bin alkhadaab uu dareemay in geerida uusan ka fakanayn ayaa waxa uu dhahay alxamdu lilaahi aladii lam yajcal maniyatii biyadi rajulin yaddaci alislaam. ilaah baa mahadle allahaasoo aan ka dhigin geeridayda qof islaam sheeganaya sababtiisa. cumar bin alkhadaab markii uu dareemay in uu geeriyoonayo ayaa waxa uu la ballamay 6 ka mid a asxaabta kuwa ugu waaweyn, wuxuuna kula ballamay in ay iska soo saaraan khaliifkii muslimiinta. 6daas qofoodna waxay kala ahaayeen cali bin abi aalib, cusmaan bin cafaan, zubayr bin alcawaam, sacad bin abi waqaas, cabdiraxmaan bin cawf iyo dalxa bin cubaydillaah. wiilkiisa cabdullaahina wuxuu ku amray in uu kala qayb galo kulanka, balse kama dhigno in asaga la dooranayo. kadib cumar bin alkhadaab waa uu geeriyooday, waxaana lagu duugay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo abubakar allah ka raali noqday agtooda. cumar bin alkhadaab markii uu geeriyoonayay da'diisu waxay ahayd 63 sano, muddada uu khilaafada hayayna waxay ahayd 10 sano iyo 6 bilood iyo 4 maalmood.